اترك أثرا في دنياك كي تلقى رحمة مولاك. ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك. اترك أثرا في دنياك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اترك أثرا قبل الرحيل. adduunkani waa meel gaaban, in yar baa la joogayaa. waa meel la marayo, cumriguna wuu yar yahay. sidaa awgeed waxaa lagaa doonayaa raad wanaagsan inaad ka tagtid. in la yidhaahdo meeshan qof baa soo maray, raadkii uu ka tegayna waa kan. wakun rajulan in ataw bacdahu يقولون مر وهذا الأثر. نقبوا كليه قف إن أتوا بعده دبدي هدي مادان وحي ليهين حقا ومري رادكي وكتغي واكن. مركا مقعاق الله حصو ويل المينيان راد وناكسن بادو قد تكتي. علامد وين أياد أدونك قد تكتي. صدقة جارية، masaajid baad dhistay, ceel baad qoday, cilmi baad dadka uga tagtay, kitaab baad qortay, dadka dariiqa maraya ayaad guri u dhistay, awlaad wanaagsan ayaad ka tagto ku ducaysa, agoon badan ayaad kafaalo qaadatay, ood korinaysay, ood ilaalinaysay. ilaahay waxa uu leeyahay إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إلهي وحو ليهي أنك نوليننا موتك وحان قرينا وحي أي قدمتين أوردن إيا وحي الراد أي كتغين أوردن بان قرينا وحوال بوان تركوبني meel baan ku qornay buu ilaahay leeyahay. walaal isweydii haddaba, maxaad ka tagtay raad? maxaad camal oo wanaagsan ood samaysay oo dabadaa sii socon doona? imise qof oo muslima ayaad u gargaartay? imise qacantaada ku soo islaamay oo gaal ahaa? imise qof oo wareersan ayaa dariiqii saxda ahaa aad ku soo riday? imisaad u oroday dadka inaad anfacdid? maxaad khayr ka tagtay? maxaad fiicni ka tagtay? maxaad wanaag ka tagtay? maxaad cilmi ka tagtay? isweydii. waxa uu yidhi nin shaacira oo gabyay: qad maata qawmun wamaa maatat makaarimuhum wacaasha qawmun wahum fi nnaasi amwaatun. waxa uu yidhi qad maata qawmun, qaar baa dhintay dadka, wamaa maatat makaarimuhum, wanaaggii iyo khayrkii iyo fiicnidii iyo wixii ay sameeyeen may dhiman, may baabi'in, way nooshahay. khayrkii iyo wanaaggii iyo cilmigii iyo wixii fiicnaa ay dadka uga tageeni wuu nool yahay, wuu jiraa, waa la xusayaa, magacoogu ma dhiman. wacaasha qawmun, dadna way nool yihiin, wahum fi nnaasi amwaatun, dadka agtooda waxay ictibaarsan yihiin inay dhinteen oo kale. waa sidii uu ku soo dhashay, sidii hooyadii iyo aabbihii ay ku soo dhaleen ayuu ku nool yahay. wuu cunayaa, wuu cabbayaa, wuu seexanayaa, wax kale ma hayo. adduunka waxba kuma soo darayo, ummadda waxba ma anfacayo. adduunku culays ku yahay. nebi ibraahim calayhi assalaam
isagoo ilaahay baryayay waxa uu yidhi wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ilaahayo xus wanaagsan aan dadka ku dhex yeeshaa dadka dhexdooda ilaahow magacayga hagaaji ilaahow xuskayga hagaaji ay u xusayaan oo iga sheekaysanayaan ilaahayo raad fiican aan kaga tagaa sidaasuu ilaahay weydiisanayaa sidaa awgeed waxaan ka hadlaynaa dhowr xalaqo oon kaga warramayno utruk atharan fi lxayaa noloshan raad kaga tag cilmi kaga tag khayr kaga tag wanaag kaga tag ajar kuu socda dhimashadaada kadib samee la socod wacan wassalaamu calaykum waraxmat ullah